wasiirka warfaafinta Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Boosaaso waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay kamid yihiin dagaalo dhawaan ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool dagaalkaas ay ciidamada Soomaaliland kula wareegeen deegaankaasi wasiirka ayaa sheegay in dagaalkaasi uu ahaa mid lagu khalkhal gelinayo amniga Puntland iyo safarkii madaxweyne Farmaajo uu ku yimid magaalada Garowe waa sida uu hadalka u dhigay waa la socotaan oo Tukaraq muddo laga joogo wiigiya bar ama 10 casho waxa weeye ciidamada Soomaaliland oo duulimaada ayaa halkaas yimi dhibaatana way ka geysteen halkaasna way yimaadeen iyadoo markaa madaxweynaha Soomaaliya oo booqasho ku tagayo Puntland ku marayo halka arinta ay ula yimaadeen waxa kamid ahayd booqashada madaxweynuhu inay si sax u dhicin isla arrimahan isagoo ka hadlaya wasiirka warfaafinta Puntland waxa uu Soomaaliland ku eedeeyay inay xulafo la tahay kooxaha Islaamiyiinta ee ka dagaalama bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxaan ogahay dhibaatada ka jidha koonfurta Soomaaliya 65% inay reer waqooyi ka yihiin waxaan kaloo ogahay dhibaatada ka jidha buuraha galgala iyo al-shabaab 85% inay reer waqooyi ay ama Soomaaliland ay qayb ka tahay qodob ka dhaadhacsan oo qaldan baa jiro hatta warisatay ay ku oranayaan annagu waxaan rabnaa caalamku inta Soomaaliya conflict iyo qalalaasuhu ka jiraan inaanu ka gadno annagu nabad baanahay kuwaas nabad way waayeen annaga hana la aqoonsan waa sheeka qaldan waa sheeka xasidnimo ah waa sheeka jalasnimo ah waxaas suurtagali mayse waxa ka fiicnayd Somaliland ama SNM baan anu oranaya markaan si xumeynayee Hargeysa iyo Burco iyo Berbera ay dhulka Soomaaliya ka degan yihiin kuna leeyihiin cid saaka Soomaaliyeed oo Berbera weeranaysa cid Soomaaliyeed oo Hargeysa weeranaysa cid Soomaaliyeed oo Burco weeranaysa ma jiro sidoo kale wasiirka ayaa ka hadlay qoraal ay dhawaan qaar kamid ah warbaahinta ku qortay safarkii madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu ku yimid deegaanada Puntland markii Farmaajo uu imaanayay Muqdisho warbaahinta waa ogeydeen wax badan baa lagu qoray oo qaar kood qaldan yihiin markuu joogayna qaar ba xataa wax qaldan qoray sida xataa BBC oo kale waxyaalaha ay qoraysay waad ka waraysaan Farmaajo wuxuu isku riday khatar buu dhex galay qofka oranaya Puntland khatar way oranaya waxaad ogaanaysaan ama idin muuqata inuu nabadda Puntland ka xuyahay baad halka ka arkaysan Puntland khatar maaha dhul nabada weeye 30 sano ama 28 sano ummadda Soomaaliyeed meeshay ku nasatay weeye meel dhibaato ka jiro maaha Salman Fanaan Ogo TV caalamiga Ariel magaalada Boosaaso